wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa kooxa ka shaqeynaya caafimaadka u dirtay deegaanada ay dhawaan ka da'een roobabka dayrta oo isugu tageen bulsho fara badan oo reer guuraa warkan waxa magaalada Garowe nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cismaan Cabdi hawlwadanadan qaabilsan dhanka caafimaadka ayaa ka howlgali doona deegaamo ka tirsan gobolada Bari Karkaar iyo Nugaal kuwaas oo dhawaan roobab ay ka da'een isla markaana ay ka dhasheen xanuuno liddi ku ah caafimaadka dadka iyo xoolaha halka waxaanu isku nimi hawlgal wasaaradda caafimaadka ee hay'adaha la jaalka ay sameynayaan oo loo dirayo dhulkii dadku u guureen oo tiimam caafimaad ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan oo warbaahinta la hadlayay ayaa ka warbixiyay shaqooyinka laga rabo inay soo qabtaan hawlwadanadan ay wasaaraddu dirtay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in saaka halakan xarunta dhexe wasaaradda caafimaadka aynu isku nimaadno inagoo kala dirayna tiimamkan runtii aadi doona deegaamada roobabku ka da'een waxaa jirtay in afartii baro ugu dambeysay ee dawladdu ku mashquulsanayd sidii dadkaas gurmad loogu samayn lahaa waxaa jiray guddi uu gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Injineer Cabdixakiin inay shir joogta u socdeen dhowr bari la soo dhaafay waxyaalihii go'aamadii ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa in dawladdu ay u dirto muxuu ahaa tiimam kuwa caafimaadka xoolaha dadka iyo guddiyo ka kooban wasaaradda arrimaha gudaha iyo culummada in loo diro deegaamadaas sidaas laaldigeed ayaa halkaa waxaa saaka la soo go'aansaday in horey u sii baxaan kooxaha ka socda wasaaradda caafimaadka oo hadda halkan taagan waxaa qorshuhu yahay oo dawladdu ay go'aamisay in la diro kooxo 10 kooxooda oo ka howlgeli doona gobolada Nugaal Karkaar iyo Bariga inta roobku ka da'ay markaan xoog la saarayo waxaynu ognahay in kooxihii dawladda ka socday ee tagay muxuu ahaa meelaha roobku ka da'een ay soo jeediyeen inay ka jiraan muxuu ama warbixinada ka heleen xarumaha caafimaadka in laga yaabo in ka dilaacaan cudurro ama baahi adeeg caafimaad u baahan tahay kooxaha kani hadii la hadmo waa 10 kooxood 5 kamida waxay ka howlgaleen oo ay ka dhaqaaqeen gobol Karkaar 5 kalena saaka waxa ay ka dhaqaaqayaan wasaaradda xarunta dhexe waxayna ku wajahayihiin laga bilaabo Dangoroyo ilaa Xaafuun inta u dhaxaysa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku dhawaaqay kol hore guddiyo kala duwan waxaana guddiyadani hadda tagayaan dhammaan deegaanadii roobabku ay ka da'een Maxamed Cismaan Cabdi waa Bari TV magaalada Garowe.